waa qisadii gabadhii jinniga ahayd ee jacaylku galay qaybtii labaad. saaxiibayaal, halkani waa qiso iyo qalin. waxaan kusoo gudbayaa qisooyinka, sheekooyinka, xigmadaha. haddaba muuqaalka leeg noo dheh, channelkana subscribe noo sar si aan meel fiican u gaarno. haddaba aan gudagalna sheekadeen. waxaynu maraysay ayadoo meel mugdi ah looga yeeray wiilkii. durba wuxuu soo aaday meesha shanqadhu ka yeedhay. mar qura ayuu arkay ramlo oo taagan. saa'id ayuu ugu farxay. dhanka kale shaki ayaa galay oo wuxuu isidhi gabadha meelahan qashinka mar kasta maxaa taaga. laakiin waa nin jacayl galaye kuma sii fogaan fikirkaas oo hadal iyo kaftan ayaa meeshii ku dhex maray gabadhii iyo wiilkiiba. habeenkaas isla meeshaas waxay ku qaateen waqti aad iyo aad ayayna uga hadleen dhanka guurka iyo mustaqbal ifaya inay samaystaan, waana isku fahmeen dhan kastaba. gabadhu haddaan idiin sii sheego waa gabar jinni ah oo bani aadan isku ekaysiday. wiilku inkastuu shakiyey ogaalkaas kuma jiro, balse su'aashu waxay tahay siduu guurkoodu noqon doonaa. waa la ismacasalaameeyey, waxaana la isku afgartay guur iyo inuu soo diyaargaroobo wiilku. ramlana waxay durbo ku habtay inanka erayo jacayl oo wax beer iyo wadno lahu laabta ku qabowsan karaan. wiilkii habeenkaas oo dhan wuxuu ka fikirayey sida fudud ee uu u helay gabadhan quruxda badan oo iyadoo kale weli uusan arag. waagu markuu baryey ayuu shaqadiisii aaday. maalintaas oo dhan wuxuu niyadda ku dhisanayay ramlo inay calafkiisa noqon doonto, nolol qurux badanna la qaadan doono. balse waraf iyo shimbiri war iskuma hayaan ayay Soomaalidu dhahdaa. habeenkii markuu xaafadda yimid ayuu familkiisa arrinkii la wadaagay, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu guursado gabar aad u qurux badan oo ay isfahmeen. arrinkaas ehelkiisu waa ku farxeen, aadna way u soo dhoweeyeen, waxayna bilaabeen inay isku diyaariyaan doonista gabadha iyo dadbagalkoodiiba. isbuuc kadib waxaa diyaar noqday familkii wiilka oo habeenkii ayuu gabadhii meeshii ugu tegey, wuxuuna ka codsaday xaafaddooda inay soo barto inta uusan birri soo doonan. waxay u sheegtay hadda inay marti joogto xaafadda, laakiin uu si nabad ah u soo doonan karo. haddana xaafadda inay kor ka tusi doonto. waa aqbalay wiilkii hadalkaas. intay israaceen ayay u tilmaantay xaafad dhinac ka saarnayd jidka, waxayna ku soo ballameen birri inuu soo doonto oo uu xaafaddooda yimaado. weliba waxay dhahday habeenkii ayuu aabba yimaadaa, waa inaad habeen imaataan. wiilkii waa yaabay, wuxuuna yidhi ma dhaqankiinna ah? haa ayay ku tidhi. waa yahay ayuu yidhi. sidaas ayayna ku kala hoyaadeen. wiilkii markii uu ku laabtay xaafaddii ee uu sheegay waxa uu kala kulmay gabadhii, way yaabeen. lambar xataa kama hayo ayuu yidhi, laakiin waa ay jeceshahay oo lambar looma oggola. taas ayaana tolkiisii ku qasabtay inay aaminaan. maqribkii markii la marayo ayay familkii iyo wiilkiiba soo baxeen oo soo abbaareen xaafaddii gabadhu u tilmaantay. xaafaddii markay imaadeen waxaa loo sheegay gabadhaas inaysan xaafaddan degganayn, aysan aqoon u lahayn. ayagoo yaaban, allaydkiina dumay, mugdiguna soo xaadiray, ayaa waxaa meel uga wacday gabadhii. waxayna tidhi xaafaddeenni miyaad aqoon weyseen? wiilkii inta soo orday ayuu yidhi haa qalbi. inakeena ayay tidhi. in cabbaar ah ayay wadday. waxay geysay guri aad u qurux badan oo layrar casaan ah ama guduud ah ay ka wada shidan yihiin. gurigaas oo dhawaq iyo buuq toona aan lahayn. waa la soo dhoweeyey odagii reerka, ayaa nabadda layska qaaday. inantooda inay doonayaanna way u sheegeen. ninkii wuxuu yidhi sow insima tihidiin. naxdin ayay familkii la wada gariireen. markaas ayay dhaheen idinku maxaa tihiin? markaas ayuu yidhi annagu jinni ayaa nahay. mid ka mid ah ayaa la soo booday acuudu billaahi min ashaydaani arajiim. mar qura ayayna arkeen ayagoo fadhiya meel qashinquba oon wax la jooga la arag. hal mar ayaa qof kasta meeshii wejigiisu u jeeday u cararay ilaa gurigii la isugu yimid. xaaladdii dhacday waxay noqotay dadkii mid aan fariir iyo yaab ku rida, waxayna ku reebtay naxdin iyo amakaag. wiilkii qisadani ku dhacday hadda waa maqan jooge, xaalkiisuna waa mid liita. haddaba adduunyada waxbaa nagula nooleh, qof kastow intaad fog tahay fiirso. halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qisadeenna. halkanina waa qiso iyo qalin. haddaba muuqaalka leeg dheh, channelkana subscribe noo dheh oo muuqaalka fogey.